دومي ومهم sababtoo ah waxa magaxuma nagu ah dhibaatadii dhacday Soomaaliya oo dhan gudaha iyo dibadda iyo golayaasheeda dawladda oo ku jirta xukuumadii oo maamulkii gobolka Banaadir oo madaxweynihii iyo meesha tagay oo dhiig shubay oo ummadda ay daabatay aqalkii sare oo ayaga meesha gudoomiyihii madan Cabdi Xaashi oo dhex taagan in matalaadii golaha shacabka la waayo walaw xildhibaano saaxiibo ah runtii hadii la doonayo in la soo hadal qaado ee ayagana ay taagnaayeen oo dadaalkaas meesha ugu jireen oo tusaaladan u soo qaabto saaxiibkayga Daahir Amiin Jeeso oo dhowr jeer ku soo celcelinaya miidiyaha laakiin ayna rida inda kulli aybin kaliila yuri Imam Shaafici wa aynu suqti tubdil musaawiya indhuhu ninkay jecel yihiin xumihiisa ma arkaan ninka ay nacab yihiin ninka ay jecel yihiin xumihiisu ma arkaan ninka ayaga ay nacab yihiin hatta haddii wax fiican uu sameeyo xumaantiisa u muuqanayso dawladda inay kala socoto ayaad moodaa mucaaradka banaanka la sheegayo ee hubaysan mabda'iisuba kula dagaalamaya waa dad si yaqaano dawladii dadka soo horjeedo laakiin iyada gudaheeda ayaaba la ogeembo inay hal dawlad tahay inay laba dawladood kala tahay inay iyadu qaabka ayada ay u shaqeyso iyo sida looga shaqeysto ma banaqaanbo xukuumadan kula xisaabtami lahayn cudurkaas baarlamaankii baad moodaa inuu ka sii darayo baarlamaankii waxa la sii luminayaa haybadiisii iyo sharaftiisii iyo maqaamkii uu bulshada ku lahaa iyo kii qarannimo haddii uu baarlamaanka shaqeeyana waa eedeysan yahay hadduu shaqeeyay waayana waa eedeysan yahay sheekadii dibka baalowna la dhihi jiray oo la sheegi jiray oo kale wuxuu ku leeyahay baa la yiri dibkan baalka iga siib haddaad ka siibtana waa ku dilayaa haddaad ka siibi weydana waa ku dilayaa meeshan waxaa taal xildhibaano cusub oo mahadiha ka gaadho oo nishaad ku soo galay oo firfircoona oo niyad hayay baa baarlamaankan soo galay oo dhalinyaro u badan in la activate gareeyo kaliya ay u baahnaayeen way aragnimo wixii ka maqan iyo wixii hadda loo baahan yahay baarlamaanka shaqadiisa sida ay ku haboon tahay in la isla kaashado laakiin baarlamaankii waxaad moodaa inuu midabta koor ka dhex abuurmay oo aad baarlamaankii aad moodid dadkii soo shaqeeyay iyo dadkii iskaashan lahaa ama wax la isla qaban lahaa in calaamad su'aal waaweyn ay ugu horqoran tahay dad talada ka go'da baarlamaanka oo wax waliba upside down of vice versa la isdhinac mariyay ayadoo ku xumayn qof ama dad gaar ah looga danleeyahay aan dantii qaranka iyo tii baarlamaanka iyo wixii ay ka goyn lahayn ama wixii qaban lahayn aan loo aabayeelin baarlamaanka hadduu nina difaaco nina eedeeyo daliil waxay u tahay inaanan isku si la wada gaardino haynin baarlamaanka bariyaha inuu socod ku jiray socodkan halkan la isku canaantay yaa moog u qaba baarlamaanka Masar buu aaday isagoo jamla ma gartay way soo noqdeen Puntland day shubeen ayuu aan baarlamaanka haddana sidan qaarkood inta la jira ay leeyihiin haddana bari waa loo socdaa Suudaan ba haddana tira intaas haddana ay socotaa halkan waxa canaan laga soo jeediyay xildhibaankii baxo oo anaga aanan ogeyn adwaay barta yaqnata gudari manuuqan in kara baarlamaanka inta uu ka shaqeyn waayay waa tirada inta la doono la iska wadanayo aanan sida lagu baxo hay iyo sida ay tahay iyo qaabka la isku xulan hay aan la garanayn gudiyadii baarlamaanka farta ku jirto sida loo dhisay aan ognahay list diyaarsan inta la keensaday ninkii laga reebi karan la reebay ninkii la rabi karan la soo hormariyay ma baarlamaanadii anaga xiriirka caalamka aan la lahayn baa lagu dhisay waxyaabo aan la garanayn lixsan iyo barban gudoomiye ku xigeen baarlamaan soo aha xiriirka baarlamaanka uu leeyahay bada dibadaha ninka soo galay agreement aniga aha hay'adaha laga shaqeeyo dhan ku jirto awoodo ku jirto NDI ay ku jirto Maxwell Brand ay ku jirto ragii heshiiska la galay baan nahay maftiban ka nahay maanta baarlamaanka wax kasta oo asay u ka dhaqaaqay inaan tala iyo ra'yi xataa aan ku yeelano si loo wada shaqeynaya gudoomiye baarlamaan arrimaha meesha socdo waa arrimo u baahan xal baarlamaanka waxaan ognahay gurubaysi baa laga sameeyay qaar xukuumadda lagu dirar waa la sameystay qaar ayaga isla dirar waa la sameystay qaar maamul goboleedyada raacsan waa la sameeyay waxaan ka koobanahay ku tal
oo annaga iska soo wada horjeeda gudoomiye mas'uuliyadda cidii qaadan lahayd baa la rabaa baarlamaankan in dib u habeyn la iskugu noqdo oo baarlamaanka la saxo gudihiisa oo annaga aan xisaabtana loo baahan yahay xaasibu anfusakum qabla an tuxaasabu intaynan xukuumad iyo meel kale aanan aadin baarlamaanka hadda koor waxaa noo rahmanayd in dib loo xisaabtamo arrinta saaxiibkayga uu ka dhawaajiyey maareeye waan soo dhawaynayaa weliba tacsiyadda ee annaga si maadi ah mashruuc nabi inaan dhaqaalo u qayb qaadan rabnaa dhaqaalahana meel kale lagama doonayo more than 3 years ayaa dad nool aan tacsiyadooda dhiibaynay markaas $100 oo joogta ayaa 4 sano ku dhawaad nalaga jaray alxamdulillah mootaan ciise caalin hadda hindiya ku dhintay lagu aasay 30 kun haloo jaro inta kale tacsiyadii zoobaan u dhiibaynaa xildhibaanadan ay u taageeraan jeclahay lacagtaasi meesha ku jirta tacsiyada waa in laga soo saaraa waa maasanta